واسكو فلنا يسمعها كاني ويوسف محمد ورسامي oo sheegtay in uu yahay madaxweynaha maamul looga dhawaaqay degmada Goldogob ee gobolka Mudug xaq baan u leenahay cid naga hor istaagi kartaa ma jirto waxa uu wataa ciidan fara badan oo isaga taageersan iyo odayaal ka soo jeeda deegaanka oo la dhacsan ku dhawaaqista maamulkiisa waxa uu Yuusuf sheegayaa in xiriir laan uu la mid yahay maamulada ka jira dalka isla markaasina ay sii baahin doonaan maamulkooda maamulada aanu deriska lahayn waa wargaas waanu isku filannahay Soomaha waanu isku filannahay waxaanu qabsanaynaa xafiisyadeenna waxaanu samaysanaynaa gobolladeenna waxaanu samaysan doonaa degmooyinkeenna waxaanu gaari doonaa sida maamulada kale ay u gaareen horumar xaq baan u leenahay cid naga hor istaagi kartaa ma jirto waxa aad tihiin xoogii shacabka xiriir leh waxaad maanta u taagan tihiin iyo waxaad berri u istaagi doontaan waxaad ka shaqayn doontaan amniga waxaad ka shaqayn doontaan horumarka waxaad ka shaqayn doontaan dhismaha wax kasta oo bini'aadanka xiriir leh iyo guud ahaan Soomaaliya u baahan tahay waa inaan gacanta la wada galnaa anigu waa idin dhex taagnahay habeen iyo maalin waa idinla jooga haddii alla idmo halkaas baanu insha Allah ka bilaabi doonaa xarunta xiriirlan waxay noqon doontaa gobolka Mudug Gaalkacyo waanu guuri doonaa insha Allah mardow markaanu magaalada dhameeyo qaar ka mid ah odayaasha degmada Goldogob ee gobolka Mudug ayaa ka hadlaya sida ay u arkaan Yuusuf Maxamed Warsamaha ismagacaabay ee ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha maamulka xiriirlan waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha xiriirlan aad baan soo wada shaqaynaynaa shacabkan waxaan leenahay taageera iyo madaxweynihiina iyo horumarkiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeysa 14 boqolkaad ku soo dhaweynaya aniga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Cismaan Cabdi ilweyn baa la yiraahdaa waa bareera mahmadunto madaxweynaha xiriirlan oo hadda meesha taaganna boqol baa soo dhaweynayna waxaanu leenahay midda maanta joogta oo meesha ka dhacaysa waxa weeye kana urafdawa kuleeyo urarayso waa hirgashay waa hirgalaysa dadka meesha joogaana way gudoojiye guurtiga 12 sano haystay baadhay aad banaana wax layga weydiiya ogolaaday waa raacday waa la ogolaaday madaxweynaha boqol badnaadsada marka aad u sii fiirsato xaaladaha dalkeena uu wajahayo waxaad dareemaysaa in Soomaaliya ay wali ku jirto qas iyo fawdo tanina waa sheeko kale oo ka soo cusboonaanaysa gobolka Mudug Cabdishakuur Shaashaa warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya